bismillah, assalaamu calaykum walaalayaal saaxiibayaal soo dhawaada. Laakiin muuqaalka muxuu mugdo u yahay? Waxaan doonayaa inaan maanta ka hadlo ee soo dhawaada mar kale. walaalayaal saaxiibayaal magacaygu waa Cabdulle Khaliif. Waxaan doonayaa maanta inaan idin la wadaago qaabka aan muuqaalada u duubo. muuqaalada qaab badan ayaa loo duubaa, laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan qaabkan hadda aniga aan u muuqdo inuu qofka intuu camera hor fariisto oo wax soo gudbiyo qaabkii uu u duubi lahaa aadna u duubi lahayd muuqaalkaaga oo soo jiidasho leh oo aanan ahayn mid mugdi ku jiro amaba mid codkiisa uusan nadiif ahayn. haddii marka aad doonayso inaad muuqaal duubto waxaad u baahan tahay saddex waxyaabood. waa camera aad muuqaalkaaga ku duubto, microphone codka ka hagaajiyo, iyo iftiin si uu muuqaalka mugdi kaaga noqonin sidii bilowga muuqaalka aad aragteen. haddii aan ku bilowno kamirada ama muuqaalka waxaad ku duubi lahayd, waxa ugu fudud waxa weeyaan in mobilka kamiradiisa aad adeegsato oo mobilkaaga intaad tripod ku xirto aad is hor dhigto, sidaasna aad muuqaalka ku duubto. afartii muuqaal ee channelkayga ugu horeeyay ee aan kasoo muuqday waxaan ku duubay mobilkayga. markii aan arkay dadka inay falcelin wanaagsan ka timidna waxaan go'aansaday inaan hore u sii socdo oo aan kamera soo gato. marka mobilka waxaad wax ku duubaysaa selfiga ma ahana tan kale ee gadaal mobilka uga taalo ayaa ka quality fiican. taas ayaa inta tripod la soo gato hadda aad shaashada ka arki karto ayaa waxaa la sameeyaa in aad mobilka aad ku xirto aad is hor dhigto. inta aad isu jirsiinaysana waxa weeyaan gacantaada markii aad taagto sidaas inuu intaas uu ku jiro oo uusan ka badanin. gacantaada dhudhunkaaga dhererkiisa waa inuusan aysan kamirada ka fogaanin. markaan arkay falcelinta wanaagsan ee dadka ka timid ayaan go'aansaday inaan horumariyo oo aan kamera soo gato. kamirada aan isticmaalana waa mid hadda shaashada ka muuqato, waxaana la yiraahdaa Canon 250D. waxa ay duubi kartaa full HD muuqaal ah, waxa ayna ku fiican tahay runtii in ay leedahay optiono badan oo kala duwan oo aad haba badan wax ugu duubi karto, oo xataa vlogs iyo ayada loo adeegsan karaa iyo wixii la mid ah. kamiradan marka waa iska qolfof haddii aysan lenses wadanin waxa ay dhahaan oo ah isha kamirada ay wax ku duubto ama ay wax ku aragto. lenseska asaga ah walaalkii Cumar Ishaar ayaa marar badan sharxaan jecelahay, mar raba inaan kusii fogaado laakiin laba nooc ayaan isticmaalaa. kan hadda shaashada ka muuqdo oo ah kay kamirada ku imaado waxa uu leeyahay asaga waa 18 ilaa 55 milli zoomka intii aad samayn karto. asagana waxa uu la mid yahay sida mobilka dhererka amaba masaafada ay ku jiraysa ayadii kamirada waa inay noqoto maxay gacantaada markii aad taagto in aad kamirada ama lenseska aad soo taaban karto ayaa fiican. sidaas ayuuna kusoo baxayaa muuqaal qaybtaada sare ee jirka kaliya muujinaya isla markaana aad u fiican. marka kan mobilka iyo lenseska ay kamirada ku imaado labadaba waxa aysan lahayn feature aad u wanaagsan oo ah backgroundka iyo waxa ka dambeeya inay blur uu ku jiro amaba shucaac uu ku jiro oo dadka si fiican ay u arki karin adigana aad si fiican u soo muuqanayso. taasi ay u dhacdo waxaan u baahday inaan soo gato lenseskan hadda shaashada ka muuqdo oo ah 1.1 asagana isla Canon ah oo backgroundka ka dhigayo haddii buugaag iyo maktabad iyo amaba wixii kale aad doonaysa inaad qariso blur gelinayo ama dad haddii ka dambeeyaan aan si fiican loo arkaynin, isla markaana quality ahaan ama jood ahaan xataa iyo muuqaal ahaan uu ka fiican yahay lenseska ay kamirada ku imaado. waxa uu jeegaa lenseskan isaga ah $150 lacag ah, kamirada waxa ay joogtaa lacag $700 ah. labada markii la isku darna waxa ay noqonayaan ayaan jeclahay lacag adi ku dhadhow $1,000. lenseska nooca labaad walaalayaal marka asagana waxa weeyaan ee hadda shaashada aan ka tusayay ee aan adeegsado waa in uu ku jiro markii aad kamirada ku xirto kamirada waa inay ku jirto ilaa 3 talaabo, waana inaad ka yara fogaato backgroundka iyo waxa ka dambeeyo sida hadda buugta dhinacan aad ka arki karto oo kaleeto. markastoo aad u dhawaato adiga iyo kamirada u dhawaato waxa ayaga waa markastoo blurka ama shucaaca uu yaraado, markastoo aad ka fogaatana waa markastoo oo bato. marka hadba adiga saad doonayso inuu ku soo baxo ayaa fiican inaad u jirsanto backgroundka iyo waxa ka dambeeyo hadba. haddii marka intaas aan uga gudbo wixii aad isku duubi lahayd ee aad ku soo bixi lahayd oo ah mobilka iyo kamirada aan adeegsaday, waxaan hadda u gudbayaa in aan ka hadalno arrinta labaad ee aad u baahan tahay oo ah codka. codka waxaa la yiraahdaa waxa uu ka muhiimsan yahay muuqaalka waa la tixin wala daawan karaa, laakiin cod tayo xun lama daawan karo oo dhegta ayaa dhibsanayso. sidaa daraaddeed inaad mic hesho microphone fiican aad ayay u wanaagsan tahay. mic aniga aan adeegsado waa kan ii xiran ee arkaysaan, waxaa la yiraahdaa Boya. shaashadana hadda asaga waa uu ka muuqdaa, wax uu dheer yahay oo ilaa 6 mitir ayuu gaarayaa oo xataa meel fog ayaad wax ka duubi kartaa. waana runtii aad ayuu raqiis u yahay oo lacagtiisa waa $25 ilaa $30 inta u dhaxaysa ama $20 ilaa $30 inta u dhaxaysa aan dhaho qaali maahan.
marka codkiisana quality-giisa aad ay u fiican yahay oo hadeertaan waa adiga codka si fiican uu kugu dhadhamayo. noocyo kale oo ka qaalisan ayaa runtii soo gatay booyahan, laakiin kan ayaa codkiisa aan ka helay oo kuwa kale dadka codkooda ay ka deeriyeen mana fiicnay runtii kana qaalisan oo laga yaabo in $150 kuwa aad ka soo bixis oo kan ka qiimo bato. quality ahaan waa uu fiican yahay, battery ayuu isticmaalaa, marka asaga ayaan ku talin lahaa dhab ahaantii inaad adeegsato haddii aad doonayso saan oo kale un inaad u muuqato. kuwa kasii sarreeyo waa ay jiraan oo inta lagu xirto sidaasna midna aad kaamirada ku xirayso oo xataa wireless ah oo codkoodana uu ka wanaagsan yahay oo level ka sarreeya ah sida walaalkii Cumar Inshaar kan uu isticmaalo oo kale dadka wareysiyada oo uga qaado. waxaa jira marka mic kale oo labaad oo asagana aan adeegsado oo aan u adeegsado wareysiyada. waxaan channelka kusoo gudbiyaa wareysiyo waxbarashada ee dadka xirfadaha ku shaqeeya iyo kuwa jaamacadaha ka soo baxay labadaba takhasusaatka ayaan ka wareystaa maadooyinka lagu dhiga iyo shaqooyinka noocaas. channelka ayaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah haddii aad u baahan tahay wareysiyo dheeri ah. wareysiyada marka waxa aan ku duubo waxa weeyaan microphone-kan hadda shaashada ka muuqda ee kaamirada ku xirayo waxa uu leeyahay laba madax, hal meelna ayaad kaamirada ka gelinaysaa oo hal meel ayaad ka gelinaysaa. cod fiican oo clear ayuu asagana soo saaraya. runtii asagana tirkiisa lacag badan ma joogo oo waxa uu la mid yahay sida kan Boya ah, lacag adiga $20 ilaa $30 inta u dhaxaysa ayuu joogaa oo lacagtiisa ma badno. haddii aan u imaano marka arrinta saddexaad ee iftiinka ah, walaalayaal muuqaalka sidii bilowga aad arkaysay nalalka iftiinka aan adeegsado ima shidnayn ee waxaa ii shidnaa kaamirada kaliya iyo nalka guriga bas un baan adeegsanayay. sida daraadeed ayuu muuqaalka mugdi ugu soo baxay, laakiin laba iftiin ayaan adeegsadaa. iftiin waa kan dabiiciga ah oo albaabka qolka aan deganahay ayaa nus furaa, halka dhinacan kaleetana uu iga daaran yahay ring light waxay dhahaan oo aad taqaanaan oo hadda shaashada ka muuqdo. labadaasayta nal oo labada dhinac isaga daaray ayaa muuqaalka sidan qurxan u soo saaray. nal waa dabiici oo waa free lacag la'aan, nalka kaleetana waxa uu joogaa lacag aan ku qiyaas adiga $50 ilaa $70 inta u dhaxayso hadba joodada aad rabto ring light-kaas inuu yeesho ayay ku xiran tahay. waa iska raqiis, isaga naftigiisa wax badan ma joogo. haddii hore loo sii socdo kor loo sii socdo nalal ka sii wanaagsan oo la adeegsado ayaa jiro oo noocyo kala duwan leh, laakiin haddeertaan waxaan ku ekeysanayaa qiimaha ugu yar iftiinka aad ku heli karto ee ugu fiican, joodada ugu fiican ama tayada ugu fiican aad ku heli karto. iftiinkan marka aniga aan adeegsanayo waxaa la yiraahdaa 2-point light. labada dhinac inaad iftiin iska dhigto sidaasna oo kugu soo baxo joodo fiican iyo nal fiican oo muuqaalkaaga si fiican ugu soo baxo. waxaa jira 1-point light inaad ring light-kan hortaada intaad dhigto aad kaamirada gadaasheeda dhigto saasna aad isaga duubto. waa 1-point light, hal nal ama hal dhinac inaad isaga ifiso nalka oo ring light dhinac iska dhigto, dhinaca kaleeto shadow uu ka soo baxay ayaad sidoo kale awoodaa inaad samayso. waxaa iyadana suuragal ah oo aad samayn kartaa 3-point light. waxay dhahaan inaad midna gadaal isaga daarto, labada dhinacna aad laba nal isaga daarto. waxaa la yiraahdaa waa kan ugu fiican. kan 2-point light-ka hadda aan adeegsanayn waa kan labaad ee ugu fiican. 1-point light-kana waa kan ugu hooseeya. marka adiga hadba kii aad awoodo adeegso. waxaanan meeshan doonayaa inaan dadka trick yar amaba tala yar aan siiyo oo ah, waxaad arkaysaa qof raba inuu muuqaal iska duubo mobilka daartay, gadaashiisa ay daaqad tahay background fiican uu ka muuqdo guryo iyo waxyaabo noocaas ah, laakiin asagii mugdi uu yahay oo muuqaalkiisa aan si fiican wajigiisa loo arkin. sababtoo asaga daaqada gadaal isaga mariyay, iftiin gadaal isaga mariyay waxa weeyaan inuu background dadka tuso, laakiin waxaa wanaagsan inaad kaamirada iska mariso dhinaca daaqada ay ka jirto ama dhinaca albaabka uu ka jiro. hadba dhinaca iftiinka uu ka jiro ayaa fiican inay kaamirada ay ka jirto si muuqaalkaagu uu ugu soo baxo si waadix ah oo dadka ay arki karaan oo nadiif ah oo clear ah. muuqaalkan intaas uu ku egyahay. waxaan rajeynayaa walaalayaal intiina doonaysa inay wax sameeyaan ama muuqaalo soo gudbiyaan inay wax uun ka faa'iideen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.